انت جينك وبيده هديت هاي بلعد هديت هاي مالها كلا بلدوين هي انت جينك بدا ama webiga ayaa waxa ku nool duqsi la yiraahdo gandi la yiraahdo oo aad u tiro badan duqsiga markaan taariikhdiisii daraaseeyay awalkii hore waxa dhulka ku beeray Talyaaniga markiisii hore dalku ma lahayn see ku keenay isweydii karaa wuxuu u keenay ta igu darayn markaa waxay ahayd inuu yiraahdo biri aroorta 20 shabag baa lagu dhiibayaa 20 shabag ayaa lagu dhiibayaa shabaga hoota sunba ku jirta waxaad isu jirsiinaysaa shan talaabo tabinka halka dhigaysaa shan talaabo halka dhigaysaa shan talaabo halka dhigaysaa marka duqsiga ku soo daadanaya meel uu ka galuulay meel uu ka baxmalay deedna marka duqsiga galabtii 5 ilaa 4 barka ayaa soo urursanaysaa hadii alla ka dhigo tabinadaadii oo intii ku gashay oo dhimatay dad duqsiga baan sunti marka meeshii keento ayaa waxa la leeyahay ka daadi hay waan ka daadi tiri inta maxaan ku raad duqsiga soo dishay dilayay maxaa macnaheedu tiradeeda sababtay maxaa keenay oo dhintay waa duqsiga ta igu daran ee aan la yaabay ilaa hadda aan maankayga ka bixin waa markuu igu yiri dhadigii la wada kala saar macallin baa jiray sheekh oo arab la arday baa loo keenay waxa la quraanka bar macallinka waxa ku adag xarafka kaafka la yiraahdo waa gartay ardaygii weligii alif looma dhigin markii uu kaafka soo gaaray buu taafde waa gartay markaas ma ardaygii taaf war anu waan arab la ahay hay wadu dayaan taafde waxaan kuugu dhaaranayaa inay iga aqli badnayn iyagu nimankaas subkaas iga aqli badnayn waxaana iga aqli badnayn aniga aqligayga yar wuxuu igarasiiyay ilaahay waa gartay anu ilaahay waan qaarqaan خالق adduunka booray baan aqaan waa gartay gaalka yar oo maxaan ku la shuuciga ah ilaahay wada firsan hadduu aqli leeyahay horta ilaahay buu garan lahaa waa sax igama aqli badna laakiin wuxuu helay cid caawisa waa gartay dadkii waalidkii dadkii ka horeeyay waxay u diyaariyeen inuu adduunka magac ku yeesho oo iska celiyo asaagiide waa gartay wuxuu iska celin lahaa markaa la baray wuxuu iska celin lahaa ayaa la baray aniga laakiin maxaa la baray waqtigeega la kala qeybay waqtigeega waa la lumiyayba waa la cunay tamaaman halkiisaan kaa siinaya niyad jabkii ugu weynaa ee tacliinta Soomaaliga ka soo gaaray adiga naftaada shakhsiyadaydan aniga haye soo dhaw baan kaa siinaya anigu maalintan jaamacadda Gahayr veterinariga dhameeyay dhakhtar xoolaad baan ahaa 4 sanadood ayaan dhiganayay waxbarashadii jaamacadda Gahayr ee Muqdisho caafimaadka xoolaha 4 sanadood markii aan dhameeyay marka digriga ugu sareeyo Soomaaliya bachelor ku ahaa master ma jirin maxad yaro siidam layra oo Muqdisho ka furaa kaasa maxad yaro hadii aan master lagu diyaariyo waliba qaybta dhaqaalaha kaliya ayaa Soomaaliyaba ka jirtay wiil markaa soo kacay baan ahayo waxaan isleeyahay aqoontii dalka tii ugu sareysay hadda waad qaadatayo cid kaaga digrii sareysa ma jirto intaas 16 sanadood baa wax lagu soo baray ummad baad u maqnay ama baa kugu maqnayd gashi baa lagu leeyahay ilaahay baa kugu leh oo adoomihiisan cashuurtooda aad cunaysa baa kugu leh oo naftaada xaq kugu leh ninkaygii hanka weynaa ee islaha professor baa tahay doctor caafimaad soo bartay baa tahay ee isu diyaarinayay inaan noqdo tool iyo qalab u shaqeeya reemiyiga waayo fiilka anigu aan qaatay fiil siyaasad shaqo ku leh muu ahayn waa fiil loogu talagalay inuu u adeego bulshada reemiyiga ah waliba inaan duurka wareego oo hantida ugu badan ee Soomaali dhoobsatay dhaqaalaha ay ka soo ceshato xoolaha ahaay inaan daryeelka intaan kari karo aan kaalinta u buuxiyo baan isu diyaarinay
oo aqoontii la ibaray haddaan nuclear la ibarin bal sida xoolaha dhuug iyo dhufaanka iyo maxaanku idhaha dhukaanka iyo wixii lamida looga daaweyn karo iyo xanuunadan maxaanku idhaha xoolihii riiqaya ninkaygii islahaa maanta nin dee ictibaar leh oo macno leh oo aqoontii ugu sarraysay soomaaliya soo bartay oo dhaqaalihii ugu badnaa ee soomaali ku tiirsanayd nin loo soo tababaray inuu caawin karo dadkiisi isu dhigayay ayaa sanadkii koowaadba balcad baa la ii diray balcad waxaa la iiga diray mashruuc la yidhaha goshiyo gendiga goshigiiyo gendiguna waxa weeyaan waa waqooyiga waxaa la yidhaahdaa dhuug iyo dhukaan dhuug iyo dhukaan dhuugu waa duqsi xoolaha cuna dhukaankuna waa cudur uu gudbiyo xoolaha ayaa dhukaan la yidhaha halkana gol iyo gendi baa la yidhaha gendiguna waa duqsigii goshuna waa xanuunkii laba nooc markaa duqsigaasi u qaybsamaayo mid bini aadmiga cuna oo tastas falay bay yidhaahdaan oo qofku qaniino sleep sickness xanuus la yidhaha buu ku ridaa qofku inuu hurduun baa la moodayaa muddo buu waanu neefsanayaa mana soo kacayo dareenkiisa maskax mana dhimanayo xoolahana mid baa cuna intan jiinka webiyada hadday tahay balcad hadday tahay meelaha kale ee beledweyn iyo intaa jiinka badda ama webiga ayaa waxa ku nool duqsi la yidhaahdo gendi la yidhaahdo oo aada u tiro badan duqsigaa markaan taariikhdiisii daraaseeyey awalkii hore waxaa dhulka ku beeray talyaaniga markiisa hore dalku ma lahayn wuxuu u keenay inuu dhulkan haddii alla ka dhigo uu ugu beero si uu sanadkii walba hal mar uu mashruuc jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa uga soo qaato uu yidhaah waxaan la dagaalamayaa duqsigii oo rogay soomaaliya oo ubadkiisa dambe ay shaqo ka helaan isaguna uu jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa uu dhaqaale uga helo ummaddana ay ku mashquusho uun daqsiga siday sooga celin lahay caqligoodu aanu ku foofin waa halkii dad talyaanigu inoo odhan jiray muuska waxaa laga qaadaa haddii alayna gooryaan isaguna war raranaya kuwii u rarayay odhan waaye warba adigu adiga raranaye adu maxaa kuma qabto baalku miya si aan dadkan beeranaya u hungarayn oo u cunin oo aanu suuqu ugu cidhiidhiyoomin bahalku ugu qaaliyoobin buu wuxuu dadka ka dhaadhiciyey muusku annagaa cunayna annaga nohdahay bahalkan wuxuu ugu talagalay dadkanu inay ku mashquulaan wuxuu ugu talagalay inuu dhaqaale ka soo xareeyo wuxuu ugu talagalay 10 sannadoodoo dambe in ubadkiisa qaar ka midii shaqo ka helaan adeer waa lagaa horeeya waad hurdo adigu waad degeysan tahay war ma haysid gawdhe tixriga uu keenay si intaasoo macnaha shaqo looga heli karaa waxaa looga heli karaa intaasoo diyaaradood ba lasoo kiraynayaa diyaaradaha isaga iskale dadkan wadana isaga iskale shaqay ka dhiganayaan shaqo lacagta ku siinaya lacagta waxaa siinaya jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa ka qaataan waxaana lagu qorayaa caawimada soomaaliya ayaa lagu qorayaa war adigu mashruucii goshii gendigaa laygeeyey xafiiskiisii baan tegey maareeyihii mashruuca haystay baan u geeyey cv maxaan ku idhahda aqoonsigaygii waxaan ahay nin dictoora oo khariij ah oo soo baxay oo ka soo qalinjebiyey kuliyadda caafimaadka xoolaha waxaa laygu soo jiheeyey xafiiskaagan waxaan rabaa wixii aad iiga baahan tahay inaad ii dirato oo aan kaala shaqeeyo saas ahaa wuxuu yidhi waayahay anagu horta shaqadaanu haynaa waxa weeyaan diqsigaa haddii aan la yidhaahdo jiinka webiga fadhiya ayaanu soo dabnaa diqsiganow neefka xoolaha ahi maalintii kama daaqi karo siduu u cunayo ayuu nafta ka qabanaya marka
dadkii xoolaha lahaa waxay ku qasban yihiin inay habeenkii foofiyaan xoolaha inay habeenkii maalintii ciidan baa jooga meesha askar baa laga baqanayaa maxaan ku la yidhaahdo gendi ayaa na ka dhigaya dee neef lo ahoo habeen la yidha ha daaqdo intee lag bay daaqi kartaa way yar tahay lidaalik baa waxaad arkaysaa lo-da jiinkaa ku nooloo dhani inay wada qalqalantahay waa no-da habeen inuu leeyahay ta igu darayn markaa waxay ahayd inuu yidhaahdo berri aroorta 20 shabag baa lagu dhiibayaa 20 shabag ayaa lagu dhiibayaa shabaga hoota sun baa ku jirta waxaad isu jirsiinaysaa 5 tallaabo dabinka halkaad dhigaysaa 5 tallaabo halkaad dhigaysaa 5 tallaabo halkaad dhigaysaa marka duqsiga ku soo daadanaya meel uu ka galuulay meel uu ka baxamale deedna marka duqsiga galabtii 5 ilaa 4 barka ayaad soo urursanaysaa hadii alla ka dhigo dabinadaadii oo intii kuu gashay oo dhimatay dad duqsiga ee sunti markaad meeshii keento ayaa waxaa la leeyahay ka daadi hay waan ka daadiyay tiri inta maxaan ku idhaha duqsiga soo dishay dilayay maxaa macnaheeda tiradeeda sababtay maxaa maxaa ugu dhintay waa duqsiga ta igu daran ee aan la yaabay ilaa hadda aan maankayga ka bixin waa markuu igu yidhi dhadigii labadu kala saar macnahaas maxaa laga jeedo muxuu ka waday marka qaasay kala leeyihiin marka maya marka wax adbad sheeg waxaa lagaa rabaa maxamedow ditore inaad gendigan meesha aad soo dabtay laysay inaad wixii dhidigooda gaar u saarto wixii labood ahaana aad ka hadul saarto waan yaabanahay anigu waxaan leeyahay war aniga 16 sannadood iyo dheeraad baa la ifangaraynayay wax la igu waday shaqadan ilmaha yare 7 jirka qaban kara waan tacliin bal la barin ayaa qaban kara oo intuu sidaa u daadiyo haddana ka soo guri kara war maxay dhaawacan maskaxdayda lagu rasaasta layla dhacaya maxaan galabsaday waa bahdalaadii halkii ugu dambeysay ninkaygii jaamacad ka soo baxay ee islahaa darajadii ugu sarreysay ee aqoonta Soomaaliyeed baad xambaarsan tahay in la yiraahdo daqsiinta soo dabto haddana dhadii iyo laba ku saar taasoo kale miyay wariga soo martay waa maya ku soo marinde taasoo dawladda ayagu sheekh waa gartay dawladaha noo taliya inay aqoonyahankii waxay aqoonyahanka ku sheegaysaa aqoonyahan ma maanaan ahayn doo ninka maxaan ku dhahdaa 8 bilood wax la soo baray waa gartay inay yiraahdaan aqoonyahankii dalka ugu sareeyayo daqsiga dhadigii labadu kala saar waa gartay تصور noloshaasana soo martay sheekh ilaa iyo hadda wali waxaan ku jirnaa gumaysigii maskaxda okay marka ilmahaygii iyo kii ka horeeyna ilaa iyo hadda jadwalkii laga bedelin oo sidii aad wax ku soo baaray sidaan anigu aan u lugo'ay waxba ma baran sidii ku socota waxbarashaha ku sheegeen sidaan u soo lugo'ay baa wali lugooyadii igu socotaa marka intaas dawlad baa maamuleysay hadda dawladii baa maamulaysa marka dawladii ma maamulaysa adeero UNICEF baa wali aniga gacanta ugu haysa ninkii aabahay kuwa dawladda hoosta ninkii barkhad casba wuxuu yidhi ninkii aabahay ninkii awowgay indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii anigana ii iibsaday ninkii aragiisa uurkan ka nabcee aan ooyay albaabka ii xidha waa gartay anigu wali ii baan ku jiraa waa gartay UNICEF baa iibsatay waa gartay saad gartay ma maskaxdayda iyo aqoontayda iyo fikirkayga wax soo saarkayga dhaway lumiyeen mid kale aan leeyahay wasaaradda waxbarashadu jooga mid sidayda soo lugoay oo isna inta lagu soo shubay waa lagu shubay isweydiin maayo war maxaa inankan ka reebay asaagii dawlad iyo madax banaan ma jirto oo ilmaha waqtigiisa 4 saacadood kaliya uga soo reebi karta inta kalena noloshiisa wuxuu ku maareeyo u hindisi kartaa ma joogtade okay lacagta lagu siinayo markaas ma ku qalantay marka shaqadaas ma qalantay subhanallahi alazim waqtigii aan jaamacadda ka soo baxay lacagta la ii qoray dawladdu ii qortay 1600 shilin bay ahayd 1600 shilin oo marka 1600 shilin markaan ilaan balcad anu cid kama aqaano guriga waxa iga kiraysan yahay muqdisho qol yar
gurigaa ii kiraysa waa 1400 oo shilin 1600 waa qaadanaysaa haddaad dhegayso baska aan soo raacayo muqdisho aan ku imanayo balcad ama gaariga sitaydan soo raacayo aan ku imanayo balcad maalin kasta maalin kasta go-an baaga oo 1400 1600 waa qaadanaysaa 1600 waan qaadanaya 1400 waa gurigii 1400na waa baabuurkii waan karta waa intee khasaaro ku jira 2600 anigoo waxba xulqoom cunin antidii kasii baxay ka bax waxa iyo baalashkaygii iyo dharmayrigaygii iyo saliidaydii iyo saabuuntaydii iyo garfeedhaydii ha sheegin khasaaro intee leeg baan ku jira waa badan tahay seen markaa daacad ugu noqon kara dawlad okay adu intaas sano anoo intaasoo sano ay qalin iyo buugi dawo wadi macna la'aana markii dambana ay tiri daqsidhi kala saar dhadigii labadu kala saar intee in la eeg baan ummadda wax tari karaa daacad ahaan karaa waa yartahay haddii xafiis laga dhiibo maxaad malaysaa samayn lahaa ya casra ma jiri lahaa waa sax waay kulalka aad markaa lagama naxariisan waa sax waqtigeygii looma naxariisan dhaqaalahaygii looma naxariisan cimrigeygii looma naxariisan haddii xafiis yar ay ii dhiibto ta noloshaydan marka hore ka fudyeeli lah waana ta ila rabaan gaalo inaan tuug noqdo inaan khaa'in noqdo inaan wax istaba mariyo inaanan maxaan ku fikirin ummaddan haddii alla idhaahdo danteeda aanan ka fikirin marka waxaad leedahay hay-adaha waxbarashada haysta waddanka dantooda kama shaqaynayaan dantooda ka shaqaysanayaan hay-adaha keliya ha odhanin min madaxweynahooda ilaa iyo jaadhiwalahooda mid walbaaba dantiisu meesha u joogaa nin dan ummadda ka fikiraya maba ku jiro okay marka bulsho Soomaaliyeed ama madax Soomaaliyeed oo fakaraysa oo intaas aad maanta tiri og oo maanta ay waxbarashadaasna soo qaatay og oo inay heeriyadaas ka dul qaatay jirta ma jirta xilgan macallin baa jiray sheekh oo arab laa arday baa loo keenay waxaa la quraanka bar macallinka waxaa ku adag xarafka kaafka la yiraahdo waa gartay ardaygii weligii alif looma dhigin markii uu kaafka soo gaaray buu taaf dheh waa gartay markaas ma ardaygii taaf war anu waan arab la ahay hay u dudayaan taaf dheh taaf la ilmu macallinkiisu ma haye anu waan arab la ahay hay ugu dayanine taaf dheh waa gartay te kelimaka ay haystaa taaf dheh buu qasbaya anigu taaf aan idhaahdo adu kaaf ku hadal xagaan ka keenaa imu barin be meel kama keeni karo saad gartay ma marka dadkanu macallin xun baa helay macallin taaf u yeedhinaya inana kaaf baynu ka rabnaa ta xagees keenaysa adeero waxaa la yidhaahdaa candhageel nin waliba intuu gashado ayuunbu ka maalaa aniga wixii la yidhi gashado baan dhiiqaya sooma aakhirkiina waa lay toogtay maskaxdaa layga toogto waxaa laygu yidhi duqsigaa kala saar dhadigii labada kus maxaan ku noolaa waxaan ku cayntay sheekhaygii oo keliya aqoontaa diinta waqtigeyga intii ay siiyeen anigu aan isu maamulay saacadihii ay iga luyn lahaayeen baa ilaahay wuxuu igu ilhaamiyey arbi'i waaye diintaada baro 12 sano ay ku sheegteen iyo dee wixii kale ee maxaan ku dhagol iyo gandi la ii dirayay ee duqsiga kala saarsaarayay waxa ii dhinac socday inaan diinta barto halkaas marka meesha dib loogu celiyo goormaad yani ka soo baxday hawshaas marka ka soo gabagabowday dee hal sano markaan joogay aan dhakafaaray aan ninkii maxaan ku managerka ahaan ku wardaada kulama shaqayn karaye 1600 baan qaataa aan iska dilaab tagay fasax oo waxaan qaato wax ka qaado asoo marka ma kula mid yahay soo ka hooseeya ma isagu dee xafiis ku haystaa wax ka badan oo qaataa inta xafiiskaas uu dad doono wixii budgetkiiba iska maamulanaya ma garan waxaan iska yimid markaa Muqdisho ninkaygi graduatorka ah waxaan imi ceelgaabta waxaan markaa sameeyey inaan dadka waqooyiga ka yimaada inaan mukhallis u noqdo oo qofkii baa mushtari doonay in qofkii meel muus lagu iibiyo doonay qofkii xamar baa loo soo doonan jiray inaan dadka reer waqooyiga ku cusub magaalada inaan indho u noqdo oo dabadeedna qaraariyad yaryar oo ay isiyaan maalintii tii baan markaa naftaydi maamulayay sanadkii markuu sanadkii ii dhamaaday anoo mucuurtoona
ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha tagoon ku yidhi ma sidan kuma sii socon karayo halkii ehelkaygii iyo qaraabadaydu joogeen ii bedela markaasaa Hargeysa la ii bedelay 88 January markaan tagay Hargeysa maxaan ku rahaa June awalkeedii baa dagaalkii 88 lagu bilaabay sidii baan u gudayaa guuraha habeenkii wali guurihii ma ku jira heeryadu waa raranahay wali haliyo isaaraya abtiyo soo maqashid waxay soo maray imika dad xirnaaga aragto xabad doobi kuma jirto asaagay maanta ma ciraysanin waxaan soo u tirinayaa fikirkan faraha badan ee aan waxba soo kordhinaynin inuu cimri degdeg igu ridayo maskaxdayda waan yaabanahay xagga aad u socotaan iyo xagga inuu socono iyo kowde marba kii fuulaaba kii kale ka daran marba kii fuulaaba kii kale ka daran miyaan geedi baabow arradu gelina waayeenin buu mid lagu diirsadaaba miyaanu meesha imanayn maxaan de kaga waa macalinkoodii ayaa gumaystaha ahaa marka waa awr raraya uu waxaan ina hor socdaa awr qoodha maaha ma fahamtay awrka rarayga iyo awrka qoodhaahi way kala yani dareen duwan yihiin awrka qoodhihi gumaysiga ma qaato laakiin awrka raraygii marka xoolaha lagu daro sida maxaan ku dhahaa wuxuu ugu dhaqmaa uun halaha waa hal lagu daray marka nas'al allah salaama allah ku barakay sheekh marka anaku barnaamijkaas soo gabagabaynayna waa barnaamij aad u qiiso badan u qiimo badan u qiiro badan qofka muslimka ah maanta xilligan noolna wax badan maskaxdiisa ay yani dib u noqonayso ogaanaya dhibka maanta jira waxbarashada lagu hayo miyaan la helaynin marka xilligan in dowladihii Soomaaliya ka jira ama dowladaha maamulada maanta tirada badan ee laalaanka wada ah in maantay qof u fikri kara arrinkan wax laga bedelo oo hay'adahan aan iska baxsho oo yani system sax ah anagu aan samaysano ma la heli karamiya wallahi ninba waxa laga sheegay inaan ilaahay ku barto war hoos joogay waan gartay madax Soomaaliyeed min aadan cadde ilaa iyo maalinkan maanta laalaanadooda oo dhan madaxdooda mid aanan de nolosha ku soo gaadhin ma jiro waan gartay aadan cadde markii uu dhashay 2 jir baan ahaa sida taariikhda dadku u qoran isagoo wali madaxa baan aqliyaysto 4 jir noqday waan gartay isagoo markaa madaxa baan aqligaygu wax dareemi jiray inkastoo markaa majuur aanan ahayn Cabdirashiid baa ku xigay hebel baa ku xigay kii kala ku xigay mid kaliya ku diirsado ma jirin oo aan islaahdo amaanadii uu qaaday ee ummadda u qaaday ayuu si xor ah oo maskax furan oo tiisa abu ku maamulaya wali ma arag laakiin qof muslima marun baa duca laga maqlaa qof muslima marun baa duca laga maqlaa waxaanu ilaahay ka baryaynaa allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana ilaahay inta saalixiinta madaxay nooga dhig way sheekh adiga wali ma isku dayday dawladaha hadda jira ama dawladda aad hoos tagto oo Soomaaliland Hargeysa ina arinkaas wali kala hadasho wasaaradahooda ama madaxdooda wali ma dhacday ma yaqaanin ba ka horeysa waa gartay ma yaqaanin ayaa ka horeysa aqoon bay isma lihin albaabadooda ma garaaco